بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتا الصوماليات كنول استيت كوينسلاند خاصة مقالة بريسبين عاصمة استيت كاسا waxaan ugu baaqaynaa una soo gudbinaynaa fariin caam ah oo ina wada qusaysa fariintaas waxay ku saabsan tahay taakulaynta ciidamadeena taakulaynta dawladda Soomaaliyeed sidii wadanka amnigiisa loo xaqiijin lahaa qarannimadii wadankana loo soo celin lahaa taasina waxay u baahan tahay inaynu qaybteena ka qaadano nin walba qayb uu ku leeyahay cidna ka sugumayno qolo shisheeyana inoo samayn mayso arrinta inaan ka wada qayb qaadano oo istaagnaan u baahannahay sidaynu la wada soconno باقبا مدحوينه soo saaray oo arinta ku codsanayo khaasatan qolyaheena qurba joogta ah dalkeena inaan caawino oo dadkeena waa awoodnaa hay'ado uma baahnin shisheeyo uma baahnin annaga ku filan ciidankeena waxay u baahan yihiin wiilasheena weeyaan inaan caawino mid yar iyo mid weyn special ciidanka qaranka ee u dhimanaya difaaca dalkeena ee cadawga maalin walba habeen walba qorraxda iyo daalka iyo dhufeyska ugu jira waxay xaq u leeyihiin inay helaan nolol maalmeedkooda xuquuqdooda iyo nolol wanaagsan ay ku noolaadaan si ay u dareemaan in dadkooda dibadda iyo kuwa dalka iyo dawladooduba ay diyaar u yihiin in ciidankooda ay caawiyaan qof walba oo Soomaali ku abtirsada mas'uuliyad baa saaran mas'uuliyad wadaninimo mas'uuliyad qarannimo ayaa saaran marka Soomaalinimada Soomaali baanahay ma ahee waa in dadku ay isu taagaan wadankii aanu lahayn cid kale sugi maayo wuxuu sugayaa qof walba oo Soomaali ku abtirsada haddii la isu taagin wadanka oo ciidan qaran la dhisinna de wadankii ka kicimaayo meesha uu taagan yahay maanta qof walba oo Soomaaliyana wuu ka warhayaa xaaladii wadankeena uu maanta ku jiro waxaan ka codsanayaa Soomaalida Brisbane ku nool qof walba oo Soomaaliya inuu ka soo qayb galo oo maalinta la yimaado oo Soomaalinimo iyo midnimo la muujiyo aad bay muhiim u tahay in la isu taago qarannimada qof walba oo Soomaaliya oo magaalada Queensland degan Brisbane iyo Australia waxaan ugu baaqaynaa inuu ka soo qayb galo xafladan lagu taageerayo wadankeena iyo dawladdeena si looga baxo qiriiriga ama gacanta shisheeye si aan Soomaalinimo isugu filnaano annaga aan dadkeena u kaalmayno marka insha Allah qof walba muwaadin waxa saaran mas'uuliyad inuu wadankiisa iyo dadkiisa garab istaago madaxweynaha qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa kii ku dhawaaqay in ciidanka la taageero marka haddii la yiraahdo baaqa madaxweynaha uu sameeyay qof walba oo Soomaaliya oo dhiig leh oo Soomaalinimadu ay ku fog tahay oo wadani ah waa inuu meesha ka soo kaca xafladu waxa weeye 19 bisha Islamic College oo ku yaala xaafadda Durak la yiraahdo 4 galabnimo ilaa 9 fiidnimo